dhaweyto uu qarxay gaari ay eryanayeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Gaarigaasi ayaa la sheegay in ciidamadu muddo ay ka eryanayeen magaalada dhexdeeda markii dambena uu ku qarxay agagaarka kontaroolkii hore ee Afgooye ee Muqdisho. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa haatan ku sugan goobta qaraxu ka dhacay. Cabdiqaadirow, haddii aad maqlayso bal nooga waran qaraxaasi siduu u dhacay, goobta uu ka dhacay iyo goorta xilliga ay ahayd. aad baad u mahadsantahay Sahra. sida aad sheegtay qaraxu wuxuu ka dhacay ex control Afgooye ee wadada dhanka Afgooye Muqdisho ka soo gasha, waxaana qaraxay gaari nooca raaxada ah oo ciidamada amnigu saakay xilli hore ilaa xilligan isla soo gaareen gudaha magaalada ay meelo kala duwan iska hor imaadii ku dhex marayeen. waxaa la sheegay gaarigan in ay saarayeen 2 ruux. ciidamada amnigu saaka xilli hore degmada Boondheere inuu ku soo dhaawacay 3 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa booliiska. qoryo xabadaha kuwan la maqlin ah ayaa gaariga saaraa oo laga toogta askarta. ilaa waqtigaas waxaa jiray in gaarigan uu ku jiray hay-adaha amniga hadalhayntooda, islamarkaana ciidamadu meelo kala duwan ay isdaba joogeen. meelaha qaar risaasaa jirtay. goobtaan taga waxaan ku arkay gaari booliisa oo miraayadaha hore xabad kaga yaaleen, layna sheegay in qofkii uu waday ama darawalkii gaariga booliska waday ay dhaawaceen raggii watay gaarigan qarxay. oo gaarigu wuxuu ahaa gaari arrintiisu maanta oo dhan hay-adaha amniga Muqdisho gudaheeda ay isku eryanayeen, laakiin markii dambe gaarigoo la sheegay in dhinaca Daynila u baxsanayay ayaa waxuu ku qarxay ex control gaar ahaan dhanka Daynila degmo ahaan. waxaa la xusay in qofka gaariga waday uu gaariga ka degay. gaarigu bacaad ayuu galay. ruux goobta ka dhawaa oo ganacsado ahaa buu caawinaad ka dalbaday. way u suurageli weysa, kadibna waxaa la sheegay in gaarigu ka degay, sidaana qaraxu ku dhacay. qofka gaarigan saaraana uu sidaasi ku baxsaday. ciidamada amnigu 2 qoray soo bandhigan oo midna saaka la sheegay in la qabtay oo gaariga laga qof waday qoragaasi laga helay. qorag dambena hadda gaariga laga helay. hafayeenka maamulka gobolka Banaadir oo shil jaraa'id qabtay goor dhaweedna wuxuu sheegay in gaarigan uu ahaa gaari saakila hadda ciidamada amnigu ay baadigoobayeen. dhaawaca dhanka dowladda soo gaara waa 5 askari oo ka tirsan ciidamada amniga. 3 kamid ah saaka xilli hore ayuu dhaawac soo gaara oo gudaha magaalada isku risaaseeyeen, halka 2 qof ee kale dhaawacantay askartaana ay ahaayeen kuwa gaariga markii uu kadib qofkan ku cararay, kadibna gaarigu markuu qarxay khasaaraha dhaawac uu soo gaaray. ilaa hadda dhaawaca waxaynu haynaa askarigaasi 5 askari iyo darawalkii baabuurka booliska waday sidaan filayo, haddii aanay guud ahaan tiradu 5 hayn. halkaa bal noo kala cadday Cabdiqaadirow, ta kale ma jiraa wax dhimasho ah oo ka dhashay qaraxaasi ama warasaastii la isweydaarsanayay? askariga booliska marka lagu daro guud ahaan waa 5 dhaawaca dhanka ciidamada amniga dowladda Soomaaliya, oo 3 kamid ah maanta degmada Boondheere iyo meelo kamida Muqdisho markii la isku eryanayay oo gaarigan ay daba joogeen ay arrintu dhacday. oo qofka gaariga waday risaas ururada ay ku dhaawacmeen. 2 ruux kale mar dambe dhaawacantana waxa waxyeello ka soo gaartay. dhaawacooduna ay xuseen taliyaha degmada Daynila ee xarunta gobolka Banaadir uu yahay mid sahlan. markii uu ka degay gaarigan ruuxa waday koorintuusan qarxin in askartan ay ku carareen ama ay ahaayeen qof dadka ugu horeeya meesha ka dhawaa, sidaasina qarax ay kula kulmeen gaarigu uu sameeyey oo dhaawac ku soo gaaray. marka tirada guud waa 5 Sahra dhaawacyada ay qabaan soo gaaray dadka dhaawacyada, gaar ahaan ciidamada dowladda. wax dhimasho ilaa hadda la sheegay ma jiro. maamulka afeenka oo aan weydiiyey cidda gaarigan saareed iyo khasaaraha dhashay wuxuu xusay in qof dhaawac gaariga uu ka degay oo wadihii gaariga uu ku sheegay ciidamada amniguna ay ku daba joogaan. qaraxuna wuxuu ka dhacay meel cidlo ah oo dhinaca Daynila ah ee ex control Afgooye duleedka Muqdisho. marka waan gartay Cabdiqaadir. qaraxa la xiro intaas.